waxaan ku bilaabaynaa 3 qarax oo isxiga ayaa galabta ruuxay agaarka isgoyska kilomitir 4 iyo hotelka Saxafi ee magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Wararku waxay sheegayaan in ugu yaraan 17 qof oo isugu jira shacab iyo ciidamadii ilaalada goobahaasi halkaasi ay ku nafwaayeen. Wararka qaar waxay sheegayaan in tirada dhimashada ay inta ka badan karto. dad goob joogayaal ah ayaa waxa ay sheegayeen in 2 qarax marka hore oo gawaari loo adeegsaday ay ku qarxeen agaarka hotelka Saxafi oo ku yaala meel u dhow xarunta CID-da ee dambi baarista ka hor intaanu dhicin qaraxa saddexaad. kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay weerarkaasi waxaana ay sheegeen in bartilmaameedku uu ahaa hotelka oo sababta ay ku sheegeen in saraakiil sare oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ay degan yihiin. haddaba goorweyd wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho waxa aan weydiiyay wariyahayaga Maxamuud Cabdisamad. farxan abaara 4 barkii galabnimo ee xilliga magaalada Muqdisho ayaa weerar ku bilowday isqarxin waxa lagu qaaday hotel Saxafi kadibna rasaas ayaa bilaabatay muddo yar kadib waxa dhacay qarax labaad rasaastiina waa ay sii socotay oo rasaasta meeshaasi ka dhaceysay waxa la maqli karay ilaa mararka qaar ilaa xilliga maqribka kadib goor dhaweyd ay istaagtay inkastoo mararka qaar hal rasaas oo teltel la maqli karo qarax saddexaad ayaa isla waqtiyadii weerarka uu bilowday ku dhow halkaasi ka dhacay hotel Saxafi waxa uu ku yaalaa agagaarka lambar 4 isgoyska loo yaqaan lambar 4 oo caan ka ah magaalada Muqdisho sidoo kale hotel Saxafi waxa ku dhow ama daris la ah xarunta CID-da qasaaraha ka dhashay qaraxyadaasi farxan amiin ambulance oo ah adeega gurmadka magaalada Muqdisho sida ay noo sheegeen dhimashadu ilaa hadda ay hubaan waa 10 qof laakiin waxay sheegeen in mar waliba ay ka badan karto sidoo kale waxa ay noo sheegeen in 45 qof oo dhaawac ay halkaasi ay ka qaadeen. maxamuud aad u mahadsan yahay wixii ka soo kordha qaraxyadaasi Muqdisho inta barnaamijka aynu ku jirno ayaanu idiin soo gudbin doonaa.